بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الإخلاص إخلاصك سورة دي لغو مقعابي مكية مكي كسودكتي وآياتها إذا هذون 4 آيات آيات يالو أفروي وحانو سوغارني 10 كاني 897 هل كان وحانو كبلابينا سورة دي 112 oo quraanka kamid ah suurada aynu meeshan ka galeyna waxa la yiraahdaa suuratul ikhlas ayaa la dhahaa waxay mashhuur ku tahay magacaas ayay mashhuur ku tahay in la yiraahdo suuratul ikhlas sidaas ay maaratay mashhuur ku tahay suuradan waxay munaasab u tahay suurada aynu ka soo baxnay oo suuratu tabad ay munaasab u tahay maxaa yeelay suuradii hore oo suuradan ka horeysay oo suuratu tabad waxaanu ku soo marnay cadaawada mushrikiinta ay nabigeena kaleey salaam u qabaan gaar ahaan dadka asaga dad ugu dhow oo qaraabadiisa ah maxaa yeelay ninkii Abu Lahab ahay rasuulka kaleey salaam adeerkiisa u ahay marka cadaawadaas ayaanu ku soo marnay sida ay nabigeena kaleey salaam u cadaaweysteen iyo waxyaabihii markaasi makaayida ayo dhagartaayo ay ku sameeyeen rasuulka marka suurada tanu waxay cadaynaysaa tawxiid ay cadaynaysaa waxay radinaysaa way ka hortagaysaa kuwa asnaamta caabuda oo uu kamid ahay ninkaas gaalka weyn ahayo Abu Lahab la yiraahdo rasuulkeena kaleey salaam ayaa tasliya looga dhigayaa lagu sabar siinaya waxa kale oo la ogeysiinaya qofkii Ilaahay subhanahu wa ta'ala ku tacalluqa oo Ilaahay tala saarta Ilaahay cid kale inta u tala saaramaaya isaga ayaa u gargaaraya hadana waxa weeye ahzaanta iyo dhibaatooyinka iyo kuruubta markay ku timaado Ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaa ka faydaaya suurada marka waxa weeye waa suurad cajiiba suurad alfaadeedu ay gaaban tahay laakiin waxa weeye macaanideedu aad u fara badan tahay weeye asmaadeeduna waa fara badan tahay qaacida waxaana jirtay kasratul asmaa'i tadullu ala sharafil musamma qaaliban asmaada faraha badan waxay ku tusaysaa qofka magacaas ama shayga magacaas lagu magacaabayo sharaftu uu iska leeyahay marka culimada bacdigood xataa waxay gaarsiiyeen asmaada suurada tan suuratul ikhlas 20 magac ay gaarsiiyeen hada waxa uu horeeyo oo qof walba u taqaana suuratul ikhlas waxa kale oo la suuratu tanzil leeyahay suuratu tajrid ayaa la yiraahdaa waxa la yiraahdaa suuratu tawxiid la dhahaa maxay tawxiidka ay ku tusinaysaa waxa lagu magacaabo suuratu najaat maxay la qofka qaari ah oo akhriya naarta oo maaratay xadiis soo aroortay ayuu ka koraa maxay la yiraahdaa suuratul wilaaya la dhahaa maxay la qofka suuradan ku tacalluqa Ilaahay wuxuu siinayaa subhanahu wa ta'ala wilaayo siinaya waxa kale oo lagu magacaabaa suuratul nisba la yiraahdaa maxay la rasuulka kaleey salaam sida aanu sheegi doono suuradaas oo nusulkeeda rasuulka ay waxay ku dhaheen unsub lana rabbaka rabbigaaga noo nisbay muxuu yahay muxuu ka sameeyay waxa say dhaheen sida aan soo qaada doono suuratul ma'rifa la yiraahdaa maxay la suuradan qofkii fahma Ilaahay uu aqoonsanaya oo dhaba fahma suuratul jamaal la yiraahdaa maxay la jamaalka Ilaahay ay ku tusinaysaa iyo jalaalka alle Ilaahay inuu ku sifoobay sifatul kamaal uu ku sifoobay alla uu ka nazahan yahay naqaa'ista uu ka nazahan yahay waxa lagu magacaabaa suuratul muqashqasha macnaha waxa weeye waa mid markaasi shirki birika iyo munaafiqnimo waxa kale oo la suuratul mufrada ayaa la yiraahdaa ama waxa la dhahaa suuratul muawwida oo qofka qaariha oo akhriya fitanta adduunyada mid akhriya ka korinaysa waxa kale oo la yiraahdaa suuratul samad ayaa la dhahaa waxa lagu sheegay Allahu samad ayaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala u dhigi doona waxa kale oo la yiraahdaa suuratul asaas wala dhahaa maxay la asaasuddin waaye waa usuluddin maxay la tawxiidka ka hadlaysaa marka suurada waxa kale oo dhahaa suuratul maani'a maxay la waxa maani'a loogu magacaabay fitnada qabriga iyo cadaabun naarka ayay qofka daa'ima oo qaari ah oo akhriya oo i'tiqaadiya oo markaasi ku dadaala ayay ka mancinaysaa waxa kale oo la yiraahdaa maaratay suuratul muhtadara la dhahaa maxay la suuradan waxa weeye malaa'iktu soo xaadirta marka la akhriyo si ay u dhageysato weeye waxa kale oo la yiraahdaa suuratul maaratay suuratul munafira maxay la shayaadiintu marka la akhriyo waa ka cararaysaa waxa kale oo la yiraahdaa suuratul baraa waa la dhahaa maxay la shirki ayay bari ka tahay maxay la Ilaahay tawxiidkiisa ka hadlaysaa
waxaa kaloo leeyahay suuratu lmudakira la dhahaa maxaa yeele addoonka waxay xasuusinaysaa khaalisu tawxiid khaalis oo baraxla waxaa kaloo la yidhahdaa suuratu nuura la dhahaa maxaa yeele qalbiga ruuxa akhriya ayay nuuraysaa waxaa kaloo leeyahay suuratu linsaan waa la dhahaa maxaa yeele suuraddan insaanku kama maarmo axaadiis fara badan oo waxna sanadkoodu qariib yahay waxna uu maaragtay xasan yahay waxna saxiix yahay oo badanaa ku soo arooray fadaaisha ay iska leedahay suuraddan waxaa ka mid ah rasuulku waxa u dhahay alayhi salatu wasalaam man araada an yanaama calaa firaashihi fanaama calaa yamiinihi uma qara'a qul huwa allahu axad qofkii doonaya inuu jiifsado oo gogashiisa uu ku jiifsada ee midigtiisa u jiifsada suuraddan akhriya 100 jeer akhriya maalinta qiyaamo markii la gaaro rabbigu wuxuu leeyahay azza wa jalla yaa cabdii udkhul yamiinaka aljanna adoonkaygiyow dhanka midigtaa jannada ka gal uu leeyahay midigtaada adiga midigtaada jannada ka gal waxaa kaloo la wariyey qofkii akhriya axad qul huwa allahu axad 50 jeer waxaa loo dhaafayaa 50 sano dunuubtooda laakiin sunuubta sagaa'irta xuquuqda ilaahay ku tacalluqaysa xadiiskaas sanadkiisu qariib waay waxaa kaloo ka mid ah qofka akhriya qul wallahu axad 12 jeer akhriya waxaa loo dhisayaa jannada sar loogu dhisayaa sar khaas weeye qofkii 20 akhriya 2 sarood ayaa loo dhisayaa qofkii akhriya 30 jeer 3 sarood marka xadiiskaas nabiga kaleey salaam markuu hadalkaas dhahay sayyidina Umar ibn Khattab ayaa waxa uu dhahay hadayba saas tahay markii la akhriyo sar la isu dhisaayo ilaahay rasuulkiisa sarahayn waa badanaa inuu dhahay maxaa yeelay wax badanaa akhrinayna markaasuna waxa uu dhahay fadliga ilaahay ka waasacsan oo ilaahay adoonkiisa wax ka soo cibaadaha la yimaado wax ka waasacsan oo ilaahay siinaya wax ilaahay agtiisa culays ku ahna ma jirto qofka qul wallahu ahad akhriya ayuu rasuulku maralka oo ku dhima doono waxa way qabriga lagu mafidneeyo laqdatul qabriga cariirigiisana iyo isu imaadkiisana waa laga aamin geliyaa malaa'ikta ayaa xambaaraysa maalinta qiyaamo kafkeeda ilaa israad ka gudbiso jannada geyso waxa kamid ah qofka qul wallahu ahad akhriya marka uu manzilkiisa gelaayo faqriga ilaahay ka anfinaya manzilkaas iyo jiiraanka xataa laakiin waxaas waxay rabaan i'tiqaad wanaagsan ay doonayaan waxa kamid ah qofka akhriya qul wallahu ahad hal ma akhriya ilaahay inuu barakaynayo ahalkiisa iyo naftiisa iyo maalkiisa iyo kulli marka hada ahadiisa soo aroortay aad tira badan tahay maxaa yeelay suuradu waxa way aad u fara badan tahay oo fadli badan tahay khayrkeeda ayaa aad u badan waxaana ka garanaysaa ilaahay subhanahu wa ta'ala tawxiidkiisa oo asaasu diina ayay suuradan ay ka hadlaysaa marka qof walba inuu ku dadaalo ayaa la rabaa oo nin saxaabada kamid ahay oo maartay rag sariya maartay looga dhigay madax ayaa waxa weeye xadiis saxiix ah waa saxiixayn marka waxa weeye markii uu salaada dushinayo markii uu suurad akhriyo ama aayado u akhriyo waxa ku khatimi jiray suuratul ikhlas markaas arrintaas lagu qabsaday rasuulka kaleey salaam ayaa loo sheegay nabiga kaleey salaam lagu yeero dhahay markii loo yeeray maxaa arrintan ula jeedaa u dhahay markaas uu dhahay anigu waan jecelahay u dhahay wuxuu ku jecel yahay waxa weeye ilaahay subhanahu wa ta'ala ikhlaaskiisa ka hadlaysaa ilaahay cibaadada loo khaliso wahdaaniyada Allah ay ka hadlaysaa markaas oo in xubbaha adqaaka aljanna u dhahay jacaylkeeda ayaa jannada ku geliyo u dhahay rasuulka kaleey salaam waana xadiis saxiixa marka suuradaanu suurad aad iyo aad u cajiib weeye marka hadda waxaanu galeynaa macnaheeda ayaanu galeynaa suurada waa markii waa la yiri sidaas loo badan yahay waa madanina waa la yiraaho baad markaas saxaabada kamid ayaa qaba laakiin sida mashhuurka waxa weeye suuradaanu waa suurad maaratay makkiya weeye bismillaahir rahmaanir rahiim suurada hadda tasawul nuzulkeena ka hadalno zahru sheegnay rasuulka kaleey salaam ayaa bacdu kufaarta kamid ah rabbigiisa ka su'aaleen oo niman quraysh ay ahaayeen ama waxa la sheegaa ahbaarul yahuud ay ahaayeen yahuuda culumadooda ama nasaarada hadii la yiraahdo hadda quraysh ay ahaayeen oo carabta ay ahaayeen waxay nabiga ku dhaheen kaleey salaam anaga aalihada aan caabudna waxay gaarayaan asnaamta noo suran maka noo suran 360 ay gaarayaan ولينا دنهينا وحوا كقبل لئيهين إيه محمد إله واحد هو كرجيسة سيدنا هنا هو قوكرة سدح بقولي اللحدا إلهان لنا وإحنا ونو قبل لئيهين جهل جها يا مركز ما الله سبحانه وتعالى يوحى صار يسقرب لجا وح مخلوق هو جداء قرينا قال هذا وح عقله هذا ما جرت معي رعتك السؤال جهنم الجلي يسوي إلهي عقله مرة وكقاعد سورة الوحان قصة مرني سورة الأعراف ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون حيوان كاسي كسيليتا وهذا قالوا كعيان إيه نرش يكونوا لهين حيوان كي كليتا الدنيا إلهي وحدنا كلهين مركا أنت لا يسقص عن صبايا مركا وحب إلهي جهنم أو أبو ريو جهنم الجلاية
caqliga waa laga qaaday markaasay waxay leeyihiin annagu waxa weeye 360 ilaahan leena danahaynina wax waa ka qaban laayihiin ilaah kaligiisa maxamed oo noogu yeeraysaa waa sidee waxa kale suuratu su'aalku ah yiri sifada rabbigaaga waa maxay hal huwa min nuhasin ma maaru ka samaysan yahay ma dahab uu ka samaysan yahay ma dhagaxa zabajadka leeyo ka samaysan yahay aw kayfa waseeya inta soo dhamay maartay rasuulka su'aaleen markaas ilaahay subhanahu wa ta'ala oo dhahay qul waxa tira sayyidka maxamed ka هو الله وي مبتدا خبر isu tahay qul waxa u tiraw ilaahay mushrikiinta asaas huwa الله وي allah di weydiinaysaan waa alle ahad way waa mid kaligiisa waa khabar labaad ahaduna ma laga bedeli karaa ahad way allah subhanahu wa ta'ala waa mid kaligiisa fi dhati wa sifati wa af'alihi ilaahay dhaatadiisa sifaatkiisa af'aashiisa kaligiisa ku yahay wax shariigo ilaahay leeyahay majid subhanahu wa ta'ala maxay wixii shariig leh wax baahan waaye wixii kaalmo u baahan oo wax in la qabta doonayo waa makhluuqe waxa weeye wax laciif weeye allah subhanahu wa ta'ala musharaka ilaahi waa ka nasahay allahu as-samad wa midka loo dhibaato sheegto mutadii khabar iyaduna isu tahay allahu as-samad wa midka loo dhibaato sheegto ilaahi ay al-maqsud fi al-hawaij ala dawam ilaahi hawaijta waa midka loo la qasdo xaaje ka soo leeyahay waa midka oofiya si dawaam ah weeye samadku macna badan ayuu ku yimaada laakiin sida hadda aan sheegayna ugu mashhuursan culumada qaar waxay yiraahdeen la jawfa lahu waa midan jawf aan lahaynin qaar waxa laga waa midka daaimka ah oo baaqiga ah laga wada khalqigiisa marka uu tago wayabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram wa tawda ilahi ama sa waxa weeye huwa alladhi laysa fawqahu ahad waa midkan ahad oo san ka sareynin macna fara badan ayaa sabadka lagu sheega lam yalid alla waxma oo san dhalin walam yulad isagana lama dhalin lam yalid الله وحما أوصل لين معايا إلهي سبحانه وتعالى وحل جنسيه مجرى وحمرك وحسك دلايان وحا شرطي إني اسكو جنسيهين وح إلهي سبحانه وتعالى جنسي سانا مجرى لم يلد الله وحما أوصل لين ولم يولد إسقر الله مدلين معايا إلهي سبحانه وتعالى حدوث أيو مارتي وكان زهية معايا وحي الله دله وحادث واي شيء لسود الريه واي إلهي سبحانه وتعالى وحكست أيو كهري بلا بداية وحكست أيو كدن بينيا بلا نهاية معايا وحكسو مولود هو لده وجسمي ومحدث إلهنا ليس كذلك وي ليس كمثله شيء ولم يكن أما أهان له لله ألا كفؤا مد أبيكتوما أحد موسن أهان ولم يكن ما أوسن أهان أحد كفؤا مد أبيكتوما أدقمه له لله الله سبحانه وتعالى مكافئ إلهي وحوه oo u dhigmo waa loo dhigayaa loo leeyahay iyo wax mumaasiil ah oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala u maslooba ma jiraan weey walam yakun uma ahaanin walam yakun ma awsan ahaanin ahad kufuan ama sa kufuan waa qalabada qar isku mid waa laakiin macna iska bedel maayaan lahu lillahi Ilaahay subhanahu wa ta'ala wax u dhigmo oo la soo garab dhigaayo oo nadiirkiisa oo lagu jumeeyay oo sidan ayuu alla uu la shabaha leeyahay ma jiraan waxaas ma jiraan saas weey marka kufu waxa weeye يعم الشبيه والنظير عليه والمثيل marka saas ayaa leeyahay wax marka Ilaahay subhanahu wa ta'ala u dhigma wax shabaha wax masiil ah ma jiraan weey marka sidaas ayaa Allah yahay subhanahu wa ta'ala Allah ad markaas aad weydiinaysaan sidaas ayaa sifaadkiisu yahay wax aad sheegaysaan ma ahan asnaamta beenta oo ilaahayaasha ku sheegaysiin waxay Ilaahay subhanahu wa ta'ala ay ka shabahan ma jirto wax idinka markaas caabudaysiin idinka si liita way saas u dhahalay rasuulka kaleey salaam marka hada waxa weeye qasadku waxa weeye mukaafa Allah in laga anfiyo Ilaahay daatadiisa wax mukaafa u ah inaysan jirin weeye oo Allah subhanahu wa ta'ala la mid weeye asharkeen intaas uu ku egyahay wallahu subhanahu wa ta'ala assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh